agaasimaha guud ee cisbitaalka weyn ee magaalada Burco Dr. Maxamed Cabdi Faarax ayaa shaaciyay in cisbitaalka guud ee magaalada Burco uu fulin doono qaliino bilaash oo ay ka mid yihiin in qaliin lagu sameeyo carruurta ku dhalatay faruurta, dadka gubtay ee maqaarkoodu xidhmay in la furo xubnihii xidhmay, iyo dadka ay dhaawacyada kala duwan ku sababeen inay gaabtaan lugahoodu. dhammaan qaliinadaasi kala duwan ay fulin doonaan dhakhaatiir laga keenay dalka dibaddiisa kuwaasoo takhasus u leh dhammaan qaliinadaasi kala duwan. Dr. Maxamed Cabdi, agaasimaha guud ee cisbitaalka Burco, ayaa bulshada gobolka Togdheer ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan qaliinadaasi bilaashka ah ee laga fulin doono cisbitaalka guud ee Burco. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Iyadoo cisbitaalka guud ee Burco ku guda jiro kor u qaadista adeegyada uu siiyo bulshadiisa, ayaa maanta halkan waxaan idin soo gudbin doonaa fursad cusub oo cisbitaalku idin sameeyay oo waxa weeyaan in ay iman doonaan dhakhaatiir maaragtay sameyn doona qaliino muhiim ah oo runtii waddanka aan si dhib yar looga helin. qaliinadaas ay ka mid yihiin inay tolaan dadka maaragtay carruurta ku dhalata faruurta ama clift lip, carruuraha ku dhasha adimadoo laaban ama club foot, dadka maaragtay gubta maaragtay maqaarkooda u xidhmo in la furo, ama contractors loo yaqaano in la furo maaragtay xubnaha xidhmay la sii daayo, iyo dadka maaragtay dhaawacyada kale ay ku sababeen in maaragtay xubnaha adimadoo kale ay gaabtaan ama ay xidhmaan. dhammaan qaliinadaas waxaa insha allahu tacaala laga fulin doonaa cisbitaalka guud ee Burco, waxaana sameyn doonaa dhakhaatiir ka iman doonta waddanka dibaddiisa oo si lacag la-aan markaa ku fulin doonta insha allahu tacaala qaliinkaas hadduu ilaahay ka dhigo. runtii dhakhaatiirta imaatinkooda iyo barnaamijkooda waxaa fududeeyey jaamacadda guud ee magaalada Burco, Burco University, oo runtii aan aad uga mahadnaqayno in fursadda bulshada ay usoo kordhiyeen ama ay u keeneen cisbitaalkuna markaasi uu waxa weeyaan ku deeqay in dadkii meeshii loogu shaqeeyo oo dad fara badan insha allahu tacaala ay ka faa'iidaysan doonaan. marka bulshada waxaan u sheegaynaa inay maaragtay fursadda ka faa'iideeyaan oo si maaragtay fiican ay uga soo qayb galaan insha allahu tacaala. waxaanu diiwaangelinta bilaabmaysaa 26 bisha 4 2022 cisbitaalka guud ee Burco ayaana ka bilaabmaysaa insha allahu tacaala. bulshada waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku dhiirigelinaa inay ka faa'iidaystaan hadduu ilaahay ka dhigo. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, telefishinka Saab, Burco. qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya, islaam iyo fatwa? waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. soo qor fatwa ama islaam una dir 150.